السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وائل السلامي waxaan idin rajeynayaa waqti wanaagsan meel kasta aad joogtaan cimri dheer caafimaad fiican iyo cibaado sugan waan ka xumahay in ayaantan aan is arkin si aan u mashquulay wadankan waan ka baxay balse maanta maxaa idiin wada maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta barbardhiga oo aad iyo aad noogu badan oo dadka badan ay isticmaalaan marka barbardhiga waa maxay barbardhig waa wax lagu fiirinayo oo waa wax kale lagu cabirayo ama waxaas waxay noqon karaan ama qof ama shay ama xoolo ama wax kasto siyaabaha badanaa oo barbardhiga u sameeyna waxaa weeye waxaan fiirinaa waxaan cabirkooda intuu la egyahay kalarkooda intuu la egyahay waxqabadkooda intay la egyihiin iyo waxyaabo kaloo badan marka markii la fiiriyo barbardhiga maxaa keeno barbardhiga waxyaabo badanaa keeno inta lagu soo koobi karin balse waxaan rabaa inaad dhowr taabto midda u horeysa waxaa weeye qofka oo asaga is aqoonin qofka markuu asaga is aqoonin wuxuu badanaa ku mashquulsan yahay qofka kaleeto waxa uu haysto ama waxaas ama waxay noqon kartaa ama dabeecad ama shaqo ama waxtar ama waxbarasho ama waxyaabo kaloo badan marka qofka markuu iimaan darana way noqon kartaa mararka qaar waxa laga yaabaa qofkaas kale wuxuu haysto wax ka fiican inuu qofka waxa wax u barbardhigaya haysto balse uusan ogeyn arkeenina waxa uu haysto balse mar walba eegaya on dadka kale iyo waxay haystaan soo markaas iimaan la'aan ay soo hoosgalaysaa barbardhiga waxaa kaloo keeni karo qofka markay kalsoonida ku yar tahay ama ay ka baaba'do oo kale in maxay ahayd uu u barbardhigo meeshiisa ugu xun ama arinta ugu xun ama xaaladda ugu xun uu maraayo inuu u barbardhigo qof kaleeto meeshiisa ugu fiican tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in aad guriga iska joogtid oo waxba qabanayna ama shaqo la'aan ku hayso oo shaqada hadda dhow kasoo fadhiisatay camal u barbardhigto qof ma aragtay shaqo fiican haysto oo ama meel sare gaari ama inta qofkaas qof kale u barbardhigi lahayd waxaa fiirin kartaa ma aho qofkan maxay tahay wuxuu qabtay waa wuxuu usoo shaqaystay waa wuxuu usoo dadaalay waa wuxuu soo bartay so waxaa u bedeli kartaa markaas oo kale barbardhigaas oo kale tina qofkaas ka tusaale qaadatid ama ka dhiirigelin u bedelan kartaa maxay ahayd siyaabaha kaleeto oo aad ku ogaan karto waxaa waaye waxyaabaha oo qofka uu kaaga fiican yahay oo kale inta barbardhigi lahayd barbardhig waqti kaaga dhumi lahaa ina adiga naftaada isku barbardhigtid oo adiga istaqaanid oo isdhahid okay shalay saasa ahaa maantana saana ahay beri maxaa noqon doonaa oo kale so mustaqbalkaaga iyo taariikhdaadii horeeto inaa labadaba aad maxay ahayd fursad dahabi ah camal ah kasoo qaadid oo kale taariikhdaadii oo kaleeto wixii kaa qaldamay inaad kasoo cashar qaadatid maantana ay ku noqoto matoorkii shaqeynaya oo isbedelka keeni lahaa beritoole iyo waxa aragtid inaad ku badishid oo kaleeto inaad biyo siisid waraabisid rabitaankaaga hal abuurkaaga iyo waxyaabaha aad dadka kale ku barbardhigaysid oo kaleeto inaad ogolaatid qofka aad tahay adiga waxa aad haysatidna aad ku kalsoon tahay haddaad ku faraxsaneen hadaa aad isku daydidna ku kalsoonaatid inta qof kale ku mashquuli lahayd waxa uu haysto oo kaleeto inaad jeclaatid taariikhdaada waxaa laga yaabaa in hayto dhibaato iyo xumaan ay u badan tahay balse aad ku laabatid oo isku daydid inaad wax ka baran kartid waxyaabihii xumaa oo dhacay ama sida wax uga baran kartid sida u sixi lahayd haddii maanta waqtiga lagu soo celin lahaa isweydiisid oo kaleeto wixii fiicnaana hore usii wadid wixii xumaana cashir ka qaadatid ayna kugu noqonin caqabad ka hortaagan inaad tilaabo hore u qaadid aad u bedelatid inay kuu noqoto hub aad ku bedeli kartid naftaada noloshaada iyo dunida oo dhan taas waxyaabo badan ay ku saamaxaysaa in aad maxay ahayd qofka markasta u fiirinin oo kaleeto qaybtiisa fiican adigana aad fiirin qaybtaada xun oo kaleeto inta qof isku barbardhigi lahayd ogow inaad tahay qof kaligiis ah oo kaligii ilaahay abuuray shaqsi ahaan aad kaligaana dhiman doontid aan kaligaana god lagu gelin doono aan kaligaana lagu soo saari doono aad tahay qof unique ah qof
jiro qof ma aragtay aad u barbardhigi kartid ma jiro. qof kasto waa muhiim, qof kastana waa maxay aheeto siduu ilaahay u abuuray ayuu uga duwan yahay dadka kale. dad ahaan waa simanahay, balse qof kasta wax u gooni oo ilaahay siiyaa jirto. marka qof mar walba ogow inuu qof adiga ka fiican tahayna jirin, qof adiga ka fiican uu jirin, balse qof kasta uu yahay sida uu yahay. fiicnaana sideedaba qof kasta waa siduu arko, siduu u cabiro, siduu u fahansan yahay. qof ugu fiican waxaa weeye sida wada ognahay qofka ilaahay ka baqo oo xaq daradana iska ilaaliya, xaqana ka hadlo. ogow marka qof naftaada aad qof u barbardhigaysid ama waxa qabanaysid ama waxa haysatid wax kale ama qof kale wuxuu haysto u barbardhigaysid, ogow inayda ahayn markii u dambeeyay ama markii u horeeyay ee waxaan haysatid. laga yaabo in xaalad xun ku sugan tahay ama wax fiican aad ku qanacsaneen aad haysatid. ogow inay xaaladaas isbedeli karto, xusuusnow inay isbedeli karto, xusuusnow dadaal iyo ducada ilaahay dartiis inay ku gaari kartid haddii eebaha awoodda la idmo. waa muhiim inaad ku kalsoon tahay waxa aad hadda haysatid. waxa aad haysatidna ilaahay ugu mahad celisid, sababtoo waxaad hadda haysatid ilaahay wuxuu dhahay igu mahad celi anna waa kuu badinayaa. marka haddaad waxaad hadda haysatid ba arkaynin aad eegaynin, balse aad eegaysid dadka kale waxa ay haystaan, taas dhibaato ama caqabad nafsiyan ee kugu noqon kartaa adiga ahaan. marka badanaa dadka qofka la isku barbar dhigayo waxaa kaleeto oo sababi karo cabsi ama hebel ama heblaayo iyo kaa hormarin, waxaad haysataa adiga waxaad ma haysatid. waxaan sida ognahay wax qadar jiro, waxaan qofka ilaaha u qoray inaa ku faraxsanaatid qofka kale wuxuu haystaa, dhahdi maasha Allah ilaahay ha kuu barakeeyo, ana waxaasoo kala jeclaan lahaa ilaahay hadduu igu talagalay wuu isiin doonaa insha Allah, ama ilaaha ka baryaa inaad dhahdid. marka cabsi camal intaas dhigaad hebel ama heblaayo iyo kaa hormarin ama hebel ama heblaayo waxaa haysatid wax ka fiican yuu helin ama yay helin. adiguna ogow inaa adi naftaada lugoynaysid oo adiguna isku xaasid ma aflaxa la dhahay. at the same time aakhirana dambi badan aad aruursanoosid oo aakhiradaadina aad adduun iyo aakhira labadaba aad tahay qof ma aragtay guul daraystay. ogow markastaba inaa bini'aadan tahay, bini'aadankana qof buuxo ma jiro 100% qof kastaba ma aragtay waxbaa ka dhiman. wixii ka dhimana qofka kale oo ilaahay u dhiibay si aan isku garab siino, isku garab qabno, isku buuxino. marka waa in cashar iska qaadano, is caawinana insha Allah. ogow xusuusno qof kula midana ma jiro, qof ka fiican ma jiro, qof adiga ka fiican tahayna ma jiro. qof walba waa qof shakhsi oo sidoo ilaahay u abuuray ee qof walbana ilaahay uu muhiim u yahay. marka adiga haddii aad og tahay qofka aad tahay, waxaa bilaabaysaa inaad adiga cimri baaris isku samaysid naftaada. qofka aad tahay waxa aad rabtid ay ku cadyihiin aad og tahay, kabacdina waxa aad rabtid markay ku cadyihiin aad og tahay, waxaad ku mashquulaysaa waxa sida aad u heli lahayd iyo meesha aad ka heli lahayd, qofka kaa caawin lahaa iyo arrimahaasi wixii kaloo la mid ah. balse haddii aad barbardhig iyo ma aragta xaasidnimo iyo uqdad iyo lugooyo aad ku mashquulsan tahay, ogow in ma aragtay aadna weligaada heer gaaraynin, aakhiradaadana aad meel uga dhacday. ogow fursadda adduunka qof walba ilaahay wuu siiyey, balse qof kasta waqtigiisa suu isticmaalo asagay ku xiran tahay. marka ogow taariikhda aad sameynaysid iyo taariikhda dunida uga tagaysid inaad ka dhigtid taariikh wanaagsan. haddii ilaahay waaridkaa dhigay aad taariikh wanaagsan ilmahaada uga tagaysid, haddii kalena aad ummadda kale iyo dadka kale laba gooraba uga tagaysid wax wanaagsan. adna ma aragtay dadaalaa wuu gaarayaa dhahay, haddii aad dadaashid ducaysatidna in ilaahay ma aragtay ku siinayo wax kasta oo adiga jeceshahay.
waxa ay haysatid markaa ku kalsoon tahay ilaahayna dhahdid ilaahow waa ku mahadsantahay waxa ay siisay balse ii badi ama iigu bedel waxaasaa kasii jeclaan lahaa. ilaahay wuu noo ballan qaaday inuuna siinaayo wax walba aan weydiisanay. marka waxaan kaga tegayaa insha allah sidaas ii nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bal ka hor intaas ha iloobina ducada, dadaalka iyo maaragtay isgarab qabadka insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waqtiga ha idin wacnaado.